السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال كسود هذا الشانل كسيد وفشيا فضلا حديات كعصب هاي يلا جهور مرين سبسكرايب لايك شير كومنت انت وإن وعاوي ولا waxay tahay wiil muslim ah oo iska dhalinyarada kamid ah ayaa wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay internetka marka wuxuu soo saari jiray sawiranta xunxun wuxuu xiriir aad iyo aad u la yeeshay shirkadahan sawiranta xun faafiya saaxiibadii markii uu la fadhiistay way weydiin jireen xakiba ka keentay sawiradan yani ma inuu soo dirtid noo sheeg website baad ka soo qaadataa ilaa oo aakhirkii dambe uu ku yiri lacagta iska keena aniga ayaan emailkiina idigu soo diraayo mid walba wuxuu siiyay emailkiisa emailka saaxiibkii emailka walaalkii bas wiilkii shirkadii ayuu la heshiiyay lacagtii ayuu contract kula galay dabadeedna emailadii dadkii oo ka qorqoray ayuu automatic ugu program garay halkaas oo wixii asiga u soo dhaca ay automatic u aadayin inta email oo loo soo qoray saaxiibadii markuu la soo fadhiistay wala sheekaysan jiray ma sha Allah hada wiigan sawiranta xunxun aad ay u fiicnaayeen dadkii wadada iska qaafilsan 6 bilood markuu saas ku waday ayuu shil baabuur ku dhintay wiilkii shil baabuur ayuu ku dhintay wala soo duugay wala uu soo kala tagay meeshii saaxiibkii oo qishada ka sheekeynaya wuxuu dhahay isbuuci oo dhintay markii uu dhintay kadib ayaa waxa ii soo dhaceen message kaas oo asiga ii soo diray oo sawirradii xun ah markaas ayaan wuxuu yiri waxaan is iri maya message kan mar hore ayuu soo diray laga yaabaa adi ayaana telefoonka furin waan iska dileeday ayuu yiri waxa ahaayeen sawirran qurun ah oo kuwii hore camal bas wiigi labaad ayaa haddana waxa ii soo dhacay sawirran kale cusub oo xumaan ah markaas ayaan waxaan ogaaday ayuu yiri in uu sawiranta automatic uu emailada ugu xiray qabriga asiga oo ku jiro ayuu xumaan soo diray subhanallah ogaa qof walba wixii xumaan oo ka tagto wali uu ku sii soconayaan waxaan wacnay ayuu yiri shirkadii oo contractiga la galay waxayna yiraahdeen buu yiri nasiye passwordkii ama kelmadii sirta ahayd ee aad contractiga nagu la gashay hadii uu qofkan dhintay aad run sheegaysaan waxaan niri buu yiri ma naqaano qofkii uu dhintay kelmadii passwordkana ma naqaano way diideen buu yiri waxayna yiraahdeen waxa uu haray 4 sano iyo bar la ilaaha illa allah asiga oo qabrigiisa ku jiro ayuu xumaantii sii faafinaya maxaan ula jeedaa taas qof walba oo maanta xumaan faafinaya ama YouTube ka ahaato ama Facebook ama internetka meelaha kale ahaato ogaaw hadii aad caawa dhimato cidna intii YouTube ka gasho ku dileed gareemayso xumaanta aad faafisay cidna intii Facebook ka tagto waxa xumaan aad faafisay cid tirtiraysa ma jirto wax walba aad shaqaysatani maalinta qiyaama kitaabkaaga ayuun baad ka helaysaa Allah subhanahu wa ta'ala marka uu yiraahdo iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba bal kala fur kitaabkaaga oo aqriso isxakun adiga halka maalinka baad ogaan doontaa sida daraadid wallahi hadii ay farintan ku soo gaarto ilaahay uu ku jecel yahay ogaw iska dileed tirtir wax walba oo xumaan aad maanta faafisay hadda jaanis haysataa hadda intay nafti kugu jirto ka faa'iideyso hadii kale waxa imaan doonto maalin Allah subhanahu wa ta'ala ka hadashin doono gacmahaaga lugahaaga iyo jirkaaga oo dhan ikuna marqaati furi doonaan wax walba oo xumaan aad samaysay walaaliyan ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba oo soo noqdo uu aqbala Allah subhanahu wa ta'ala aad iyo aad ayuu ugu farxaa adoomadiis markii uu soo laabtaan wallahi waxaan idinku la talinayaa naftiida iyo idinka in Allah u noqon
allah aanu noqono iska dayno xumaanta faafinayno wax laga faa'iiday ayaana jirin hal aayado qur'aan hal xadiis oo aad qof kale gaarsiisid ayaa laga yaabaa inuu allah subxaanahu wa tacaala kuugu dambi dhaafo oo jannada kuugu geeyo lagana yaabaa hal xumaan ood faafiso in aad naar ku sababto sabab gelitaankeed sabab aad u noqoto sidaa daraaddeed walaalayaal waxaa idugula talinaya la iska dayo xumaanta la faafinayo allahna qur'aanka wacad ayuu ku maray inuu adduunkana dulli ay ku noolaan doonaan aakhirana cadaab aad iyo aad u xanuun badan lagu cadaabi doono dadka xumaanta faafiya nana jecel inay ku dhex faafto dadka alle iyo rasuul aamina sidaa daraaddeed iska joojiya xumaanta la faafinayo وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم